بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiin waa idin wada salaamay. maantana waxaan kasii wadi doonaa insha Allah componentski waan sii wadi doonaa. maanta insha Allah waxaan dhigan doonaa component aad u fudud. marka waa componentga markuu qofku button taabto ama uu meel taabto app-ka kamid ah hadaa rabtid inuu telefoonka vibrate sameeyo ama uu gariiro kaasi maanta sameynaa. marka halkan exit ayaan magacoon ka bedelnaa app-keeni hore xagga exit noogu qornay oo button-kii vibrate ka dhig yani gariir weji kadibna componentgii dialog aynu hore u isticmaalnay maahe waxaad kusoo darsan componentga ay ku qoran tahay vibrator kadibna magacood u bixin. marka magac u bixiso add tiraahdo wuu kugu soo biiraysaa arkayso so kaliya wuxuu kaaga baahan yahay hal shay ayuu kaaga baahan yahay. halkaas shayna waxa weeye componentska tagaysaa kadibna waad arkaysiin wuxuu wataa xabada componentga qoraatay ku qoran tahay vibrator kadibna waad dhigi marka la taabto button-ka vibrate waxa odhan vibrator ba halkaas saxda saari. haddaba halka wuxuu ku weydiiyey imisa millisecond ayaabuu telefoonku gariiraya. marka haddaad tiraahdo 1000 millisecond waxa u dhigmataa 1 second. haddaad tiraahdo 3 millisecond waxa u dhigmataa 3 second. aduu markaa haddaad tiraahdo 20 millisecond oo kale waa 20 second 20,000 millisecond baa uga jeedaa. marka inagu waxaan ka dhiganaa 5 millisecond baan ka dhiganaa ama 5 second. marka telefoonku wuu gariirayaa waxaa laga yaabaa inaydaan maqlin balse markaad app-ka saa u samaystiin ay taabtiin button-ka ama button kale oo app aad wadi aad dhex dhigtid wuu gariirayaa waa hubaal taas. marka app-keen eegana imika app-keeni components markuu saa app-ku kugu soo install garoobo waa soo furanaysaa waa kan kadibna wataa vibrator waan taabanayaa wuu gariiraya telefoonku.